ciidamada ammaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa ay xireen ex xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf Xasan Black oo ka tirsanaa baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. xildhibaan hore Xasan Black ayaa ciidamada booliska kala degeen gaari uu la socday Sabtidii mar uu marayay inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha Shaati Guduud iyo saldhigga dhexe ee Baydhabo isagoo ku sii jeeday hoogiisa oo ku yaal magaalada Baydhabo. laamaha amniga iyo mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed wali wax faahfaahin ah kama bixin sababaha loo xiray ex xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf Xasan Black. hayeeshee waxaa xusid mudan in maalmihii la soo dhaafay uu dhaliilay siyaasadda madaxweynaha Koonfur Galbeed. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxay noo sheegeen in ka hor inta uusan tagin magaalada Baydhabo Xasan Black uu magaalada Muqdisho uga qayb galay shirar looga hadlayay تعدياتي ciidamada booliska ka geysteen magaalada Baydhabo bishii December ee sanadkii 2018 markaasoo dadweynaha reer Baydhabo ka gadoodeen xarigii Mukhtaar Roobow Abu Mansuur